بسم الله الرحمن الرحيم أرتا وحنو مدعينا بهذا يقع سنتين مشان استاذ شلين واسرني مارت وهذا مهتسين هاي أخيار تعود وكمدي هاي قدوميها جامعات أخيار تكلم معلمين كل وسلامتين ماشان وحيل جو ويل كيجا ويب سايت كان سميه ومارتي دين عن الميديا كا دين عن بيرلي كا مركا waxay aad inuu ku soo daro sawir markii Itoobiyaanka wadanka yimaadeen waxaan geeyay waafugay teeglo waan geeyay oo dhan reerkoo dhan marka asagoo yaanba dheer wata oo beer falay inuu ku soo daray beer walaashay leedahay geeyay ay soo falayeen kulligood marka yaanbadiisa dheer inuu ku soo daray sawirka meeshan codka barbaarta iyo maarta codka beeraleyda barbaarta iyo beerahana waxa waaye aniyo awees meelan ka gaabinay waay leena hawl ay warbaahinta lahayd waay tan maaha macnaheedu hawl oo beeraley leeyihiin maaha annaga lahayn inaan ka shaqeyno oo cod u noqono dadka beeraleyda dadka aan codka lahayn dadka shaqadoodu waxay ahayd inay beeraha ku mashquulaan oo annaga u tagno aan ka shaqeyno codkooda soo saarno baahidoodii soo saarnay ahayd marka anaga gaabinay awees isla qaadana Soomaa marka istaadka daa wuxuu ka dhawaajiyay siyaasadda in lagu baxay anaga dadka siyaasadda ku baxay waxaan u naqaanaa wariyaal maaha marka tababar waa siinaa laakiin xagga nooga leexdaan waxaan dhahnaa hal sheekadii sheega jooharan tababar ka bixinay oo wariyaashan siinayn waxaan ku yiri dhulkan dhul oo beereed waay siyaasad inay ka shaqeysaan ma idinka waxa way dadka ku baraarujiya inay beeraha ka shaqeeyaan xoolaha ka shaqeeyaan mid kamida wuxuu yiri adiga beera sheegaysaa wiil tuuladana ayaanba laga waayo wiil marka ayaanba inta lagay wabiga lagu tuuro wiil sababta maxay tahay dadkii markay beeraha biyo ka galeen oo barakaceen waa magaalada soo galeen waa la ururiyay lacag u soo dhacdo wiil $90 $100 lacag u soo dhacdo marka beer intuu aadi lahaa $90 oo haystaa intuu beer muxuu ka aadaa marka arintaasna meediyaha ay ahayd inaan aad u karino oo aan ku soo celin dadka beeraha ku celino oo $90 soo dhacayso aan kala dagaalno hay'adaha ajnabiga iyo kuwa Soomaalida ee wasaaradda muxuu ahaa shaqada oo hawshaas idin qayb kale inaan bal arintaas maartay aan yaxyax uga dhigno oo maartay dadkii beeraha ku noqdaan waa soo kooba hadda wixii ka dambeeya 10 sano waa soo dhamaatay qayb badan kuma lahayn laakiin hadda wixii ka dambeeya diyaar aan nahay tababarada filimka waa arkayay waa xogaa ila dheeraa waxyaabo badan oo maartay oo aan wax ka qaban karaa ku jiray ani production aan ka shaqeyn jiray oo video iyo drama iyo maartay iyo oo BBC Media Action ka shaqeynay marka wax badan aan wax ku kordhin karnaa si gaar ah aniga ahaan aniyo ninkan oo meeshan taagan oo maartay oo saaxiibkay muxuu ahaa iyo aweesba wax badan aan qaban karnaa dhalinyaro hadda waxaa jirto oo production ka barata soo dhamiya kamida oo heshiis ay andhoodaan la galnay oo dhalinyarada in loo soo barbaaray inay kuwa dariiqa taagan oo kaamirooyinka watina ka leexano oo dad kale la barbaariyo oo ay ka shaqeeyaan dadka nugul waxay tabanayaan ka sheekeeya baahidoona ka hadla dadka siyaasadda horta la soo jeeda laftigooda ma ogtahay waxay ka shaqeynayaan ma og siyaasad iyagaas heestaba marka in iyaga laftigooda bal laga waciyo sheekada oo la qadiyo mikrofoonka laga qadiyo waxa way muxuu dhinaca loo soo jeeday marka anaga waxaan rabnaa bal social media maartay xogaa ciriiri nagu noqday qof walba wariyo noqdo marka wariyeelkaashana iska dhaafa wariyaasha rasmiga maartay ani awees waa ka shaqeynaa hawshan waana garab taaganahay barbaarta iyo beeraha ma santii